waxaa laba maalmood meeshan hoolka daawad ka socday shir aqoon isweydaarsi ah oo bahalka adiga soo qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland kaasoo looga hadlayay qaabka maamulka loogu dhaadhicinayo heer degmo ilaa heer tuulo waa xilli soo socda oo fahankiisuna u baahan yahay dadku inay durba ka qayb qaataan waana xilli hadda bilow ah muduna socon doona waxaan dalal maalmood ka qayb galnay shirkii watashiga ahaa ee halkan ka socday soo qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka iyo dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Jubbaland Soomaaliya shir aad u muhiim u ahaa watashigu ahaa wuxuu ku saabsanaa daadejinta maamulka loo daadejinayo ilaa heer degmo ilaa heer tuulo ilaa heer beeled maamulka in dadka gacanta loo geliyo in qorshayaashii lala yimaado marka watashi qurux badan buu ahaa fiican runtii aragti guud markaan ka bixiyo qaabkan oo ahaa qaab aad u wanaagsan cusub aan rajaynayana dawladda maamul goboleedyada kale inay ku dayan doonaan oo runtii ay sidaan kale isticmaali doonaan arintan oo runtii wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay facility gareynayeen UNDP-du runtii annaga aragtideeda aad bay u ahayd mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh barnaamijka ka nagala soo qayb gashay barnaamijkaas oo ahaa aqoon isweydaarsi aynu ku baranaynay maamul dejinta maamulada oo ay nagu martiqaadeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ah noona facilitate gareeyeen UNDP oo laba maalmood aynu ka wadnay hoolkan daawad marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo sidii quruxda badnayd ee barnaamijkaas doodiisa aad uga qayb qaadateen una soo gunaanadeen waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo